waxyaabaha la yaab kale oo aad la yaabayso mararka qaarkood dadkii horena oo waxaan shaqooyinka yaqaanina way dhammaadeen wiil agaasimo waaxeeda oo wasiir hay-ad kale warqad u qoraya oo dhahaya wasiir waxaa lagu amrayaa waa wasiir waa hay-ad kale iska daa wasiirkiisa agaasimihiisu amri karin oo warqad intuu u diro ku amri karin iska daa inuu cid kale amartay agaasimihiisa aan wasiirkiisa amri karin daa'iradiina waa ka baxay bokiskii wasaaraddiisa hay-addiisana waa ka baxay qof uusan la level ahaynna waa amrayaa kan la levelkaa xataa maartay ma amri karo agaasimo waaxeedka wasaaradda waxbarashada agaasimo waaxeedka wasaaradda cadaaladdu ma amri karo yani waa dowlad dhisku sida uu daciif u yahay oo u dumay weeye kuuda iyo kaada ama ku socota iyo ka socotada waa isku khaldayaan waana secretary wax qoraya wallahi billahi Soomaaliya inta joogto waa yaabaysaa yani nin wasiira meel wuxuu la soo istaagayaa xukuumadda aan ka tirsanahay waa fashil macnaha adigoo wasiira meel waxa la soo istaagta xukuumadda aan ka tirsanahay waa fashil okay taada waa u imaayna laakiin nimankan dhalinyarada sida caadiga waa ognaa sida lagu soo xulo waxaan 4.5 lagu soo xulaa 4.5 ka liftirkiisa baa waxaa lagu soo xulaa si aad u siloon aad u qaab daran oo aan ognahay nin madaxda kaba u soo qaaday waxyaabo badan oo halkan aan ka sheegi karin uu soo sameeyay kadib le inuu macnaha xil helo marka nin waxa soo dhiba soo maray aaminsan landheere inuu yahay hadduu arko wasiirkii inuu u arko يعني إنه كلان ديريسين يهي مادام وكسو كرلان دير إنه يهي غير هبلنا إنه كلان جابسيهين وقصد إنه يعني سي محلي له شرعي أقوني أغلى أن وافق سنين إنه أولو هدلو مركا تاسو حلو جود بكرا إلا ما قفك شقد اللو ديبايو لغو صوح ولو أقونتيس كرتديس إيو أغليس إنت لغو صوح ولاي horta arintaas way jiraysaa si uun way u jiri doontaa laakiin aniga waxaan aad u la yaabanahay adigii oo wasiirkii ahaa inaad meel publiga waxa la soo istaagtid waxa la yiri hadda ka hor waa Tanzania inay ahayd aan u maleynayaa mas Uganda ee ma xasuustay sheekada baa waxa la yiri wiil Soomaaliya ayaa maxkamadda la soo istaajiyay wiilka markaa حبسي وكجري كناعة عنتي حوجا عنت حما هيسي وضعي في مركي قرصورها ويدي سؤال وعنو بيسيه صويوس نو يوس معناه ستة برلان وهرله قرصوره هي مركو حكيري و محيد مدراو صانا يعني إيريدا سوالي هذا وصومالي ضد كي يصال أم لا يا مكتاه مركو حكيري واد يسيسا كروها ما كروه هذا شيء ويسي سامعة marka cunug intuu madaxa kor u soo qaada wuxuu yiri gacmaha iga xiran adiga garsooriye oo go'aankii inaan baxay inaan maxal laha xabsiga ku sii jiray go'aanka iska leh sidee macquul u tahay inaan ku yeeso yiri ma fahanti haddaas aaminsan tahay inaan ku yeeso karo yesma ku ma badino yiri ma fahanti markaas garsooriye baa dib waxa loogu celiyay dib waxa loogu celiyay wax oo dhaqan celin ay ku sheegaan ninkina waa la sii daayay marka haddii marka adiga oo wasiir ah inta public soo istaagtid aad dhihi karto dawladnimadeena waa qashin aad dhihi karto maxaa diidayo wiilka kacda iyo kooda isku qaldaayo ama wiilka wasiir asoo gaasimo waxayda wasiir waraaq u diraayo inuu ka shaqeeyo wasaaradaha waxaan leeyahay adigana waxa u baahan tahay in dib dhaqan celin lagu sameeyo dawladnimada lagu baro ciyaalkaasna in meesha laga bedelo dad wax gal ah oo dawladda iyo dalka u shaqeeyaba la keeno dawladnimada markii laga hadlayo waa positive iyo negative marka public marka joogtid waxa la yiraahdaa wax kasta waa noo hagaagsan yihiin meesha ugu fiicneeday noo marayaan horaan u soconnaa waa la socdaa laakiin markii maxaa la yiraahdaa aad isu kaliyoodaan wasiiradoo kale sidii shirka golaha wasiirada maxaa la yiraahdaa agaasimo markaad agaasimayaashaada la kulmayso
waxaasaa la canaantaa indhaha laga bixiyaa waxaa tiin ma lahane waxaan iska hagaajiyaa la yidhaahdaa marka haddii aad awoodi weysay adigoo wasiirka oo golaha wasiirada ka hadli karo yacni shirka golaha wasiirada ka hadli karo oo ra-iisul wasaaraha gaar ula hadli karo oo si caadi u hadli kara markaad public soo istaagtid dunida maxaa tusaysaa fariin noocee aad dunida tusaysaa kow midda labaad meesha niman dad dhalinyaro ah aad u badanaa jooga moraalkooda see noqonaya dhalinyaradan hadda aad ogtahay in yacni mar walba ay aaminsan yihiin in cadaalad darre ay jirto in in waxooda la boobay in maxaa la yidhaha waddanka dowladnimo fiican ka jirin macnihii maxay aaminayaan maxaa ka rabtaa berri inay markay wasaaradaha yimaadeen inay qabtaan shaqo nooceeha ka rabtaa haddii barak